الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. عشر كوحو كبلاب مياه آيات 750 سورة البقرة كمدة. nicmooyinkii baa ilaahay uu xusayey faraha badnaa ee reer banu israa'iil uu siiyey iyo balaayooyinkii uu ka badbaadiyey iyada oo mar walba ilaahay uu ugu muujinayo arrintan dadka mu'miniinta ah dadka muslimiinta ah ee had walba iman doona in ay noqdaan kuwo aad u dhagaysta ilaahay tawsiyaadkiisa iyo dardaaranada uu ku siinayo qur'aanka dhexdiisa. reer banu israa'iil horaynu u soo xustoo dariskaa horaynu ku soo qaadannay markii ay tiiha ku jireen ee ay dawaqsanaayeen 40 sano dhulka dhexdiisa ayaa ilaahay uu u hadheeyey daruur. wadallalnaa calaykum alghamaam. daruurtaasi kolba meeshii ay joogaan ayuunbuu u hadhaynayay, ayuunbay dul imanaysay. waxa ay ka celinaysay markaa bacad. waxay u ahayd hoosiis rabbaaniya. waxa kaloo ilaahay uu soo diyaariyey raashin aanay kuukinkiisa iyo karintiisa iyo dabkhigiisa iyagu lahayn, wax tacabi aanu kaga bixin, iyo shay sharaaba oo malabahoo macaan ilaahay xaggiisa ka yimid oo loo soo diyaariyey. wa anzalnaa calaykum almanna wasalwa. mannigaasi waa xabag barsheed iyo malab. asalwa waxa uu isaguna yahay hilib duban oo aad iyo aad u qaaliyaho oo wanaagsan. waxa uu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam mannigaasi inuu waxyaabo fara badan lahaa. alcajwatu min aljanna wa fiiha shifaa'un min assum waalkam'atu min alman wa maa'uha shifaa'un lilcayn. xadiidkaasi sidaasuu tilmaamaya. tirmidi ayaa soo wariyey, xasanna wuu ku sheegay xadiidkaas. timirtu had iyo jeer marka ay xasiida tahay ayaa cajwa laydhaa, waana qayb timirta ka mid ah. jannada xaggeeda ayay ka timid buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. suntana way dawaysaa. waa timirta teedaa xasiida ama qaybta cajwada laydhaahdo kollay madiinay ka baxdaa iyo xijaaj. alkama baashaa laydhaahdo timayuluqda mannigii reer banu israa'iil la siiyey bay lafteedu ka mid tahay. waa baashan likaas salkiisa ka baxda ama xuukadiisa ee had iyo jeer dhulka ayga ah ka baxda xagaagiina bislaata, ee urteedu ay aad u udgoon tahay, macaankeeduna uu wanaagsan yahay. biyaheeduna isha ayay dawo u yihiin buu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam. ilaahay markaa waxa uu ku yidhi reer banu israa'iil kuluu min tayibaati maa rasaqnaakum. waxa aanu idin siinaa nicmadaa cuna. kuluu min risqi rabbikum washkuruu lah. war waa nicmo rabbi uu idinku galadaystay, ha ka kibrina hana ka xadgudbina ee ku mahadnaqa. laakiin maxay yidhaahdeen? qur'aanka ayaa ilaahay uu inoogu dhex sheegi doonaa aayadaha dambe inoogu iman doonaa bal wixii ay ku jawaabeen. waxay ilaahay ka dooneen in uu ku bedelo nicmadaa iyo barwaaqadaa la siiyey waxyaabo iyagu ay sheegteen oo wax macnaahoo ay leeyihiin aanu jirin ayay markaa codsadeen. xagga dambaanaynu ku gaadhi doonaa. dabeed musiiba ayaa lagu salliday,
barakadan iyo khayraadkana heleenna waa laga gooyey taasi dulmi bay ahayd ay naftooda ku sameeyeen wamaa dalamuuna walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun waxaa kaloo rabbi uu ku xusayaa halkan haddana arrimo kale oo xaggooda ka dhacay reer banu israa'iil wa id qulnaa buu ilahay yidhi wadkuruu waxaa xustaan id qulnaa markii aanu nidhi udkhuluu haadihi alqarya magaaladan gala reer banu israa'iil baa ilaahay uu ku yidhi waa baytulmaqdis fakuluu minhaa waxaa ka cuntaan magaalada xaggeeda nicmada ku sugan cuna xaytu shi'tum meel kasta oo doontaan raqadan aklan raqadan cunitaan waasaca iyo nicmo badan ba idinkula kulmiya cuna wadkhuluulbaaba sujadan reer banu israa'iil ilaahay waxa uu ku yidhi albaabka magaalada marka aad ka sii gelaysaan idinkoo sujuudsan oo ilaahay u foorara oo markaa rabbi u mahadnaqayo sujuuddiisa la imanaya gala erayna waa la faray ilaahay ay ku dembi dhaaf weydiisanayaan waquuluu xita waquuluu waxaad tidhaahdaan amrunaa xitatun arrintayadu waa dembi dhaaf aanu ilaahay ow kaa doonayno naqfir lakum markaa waannu idiin dhaafi buu ilahay yidhi khataayaakum gafafkiinna wasanasiidu waannu u kordhin doonnaa almuxsiniin dadka samafalayaasha ah abaalkooda ayaannu u badin doonnaa waannu wanaag badan baannu siin doonnaa buu ilaahay imtixaanaad baa nimankan la soo mariyey iyada oo ilaahay uu tusinaya khalqiga soona muujinaya xaqaa'iqoodu waxa ay yihiin bayt almaqdis baa la yidhi gala waa ardu shaam waa dhulkii ilaahay uu barakeeyey waxa ay leedahay nicmooyin badan subxaana aladii asraa bicabdihi laylan min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah ilaahay baa hareerihiisa barakeeyey waxaa ka baxaysa khudrada oo dhan waa dhul qabow biyo ayuu leeyahay beerihiisa ayaa badan dhul cosabahoo wanaagsan weeye haddaba nicmada badan ee halkaa ku sugan ee waasicaa daaqa baa ilaahay uu leeyahay laakiin laba arrimood baa la faray midda u horraysa weeyaan midi waa ficil la faray inay la yimaadaan idinka oo waxaa la yidhi gala albaabkaa idinka oo ilaahay u sujuudsan oo madaxa sidaa u foorarinayo rukuucsan waxaa kale oo la faray inay ilaahay qowl u yidhaahdaan oo dembi dhaaf ay weydiistaan waquuluu xita labadaa arrimood kolka ay yimaadaan waxaa loogu ballanqaaday oo rabbi ugu ballanqaaday inuu u dhaafi doono dunuubta naqfir lakum khataayaakum wasanasiidu almuxsiniin sidaasaanay tahay oo addoonku marka ilaahay uu wax faro ee amarkaa si wanaagsan uu u qaato isaga oo aan meeraysi lahayn oon madaxa duduweynina qanacsan oo khaashican wa khaadican lilaah ilaahaysa u khushuucsan oo ka amar qaadanaya marka uu arrintaa ku tallaabsado waxa uu helayaa ilaahay qufraankiisa iyo dembi dhaafka rabbi ayuu helayaa marka nimankii iyaga ahaa waxa isweydiin leh maxay sameeyeen markaa waxa ay sameeyeen sidan ilaahay uu sheegay fabaddala buu ilahay yidhi way dooriyeen aladiina dalamuu kuwii dulmifalayaasha ahaa qawlan hadal bay beddel qaateen hayra aladii kii aan ahayn qiila lahum iyaga lagu yidhi hadalkii la yidhi dhaha oo ku wada dhawaaqa mid aan ahayn bay qaateen fa anzalnaa waxaannu ku soo dejinnay buu ilahay yidhi cala aladiina dalamuu kuwii daalimiinta ahaayoo dee kuwa hadalkii layidhi dhaha beddelay ah rijdan cadaab ayaannu mina samaa'i kaga soo dejinnay xagga kore bimaa kaanuu yafsuquun faasiqnimadii ay samaynayeen awgeed iyo ilaahay inay adeecaan oo ay diideen darteed haddii la yidhi nimankaa iyagaa qowl dhaha qowlku muxuu ahaa xitatun ficil dhaha baa lagu yidhi oo ficil la yimaada udkhulu lbaaba sujada albaabka idinkoo sujuudsan ka gala labadiiba way beddeleen mid waxaa inoo sheegay qur'aanka fabaddala aladiina dalamuu qawlan hayra aladii qiila lahum hadalaan kii loo yidhi ahayn bay qaateen ficilkiina waxaa inoo sheegay inay beddeleen nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nebigu waxa uu lahaa calayhi salaatu wasalaam fadakhaluu yazxafuuna calaa astaahihim fabaddaluu wa qaaluu xabbatun fii shacratin reer banu israa'iil markii lagu yidhi albaabka ka gala oo waxaad tidhaahdaan xitatun dhaha idinkoo sujuudsanna gala ayay dabada iyaga oo ku siqaya galeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dembi dhaafkii layidhi ilaahay weydiistana
may weydiisanina waxay idhaahdeen ilaahay waxaanu doonaynaa xabad raashina ama arabakhi oo kale ah oo galkeedii ku sugan ama shaygii daboolka u ahaa ku dhex jirta ayaanu ilaahay ow kaa doonaynaa bay yidhaahdeen arrintani waxa ay tahay jees iyo istihze iyo dheeldheel aanay garaninba amarka ilaahay qiimaha uu leeyahay iyo waxa laga doonayo muhiimadda uu leeyahay iyo inuu iyaga dan u yahayba may garaninba maxaa ilaahay ugu abaalguday faanzalnaa cala aladiina dalamuu buu ilahay yidhi kuwii daalimiinta ahaa waxaanu ku sii daynay rijzan min asamaa cadaab xagga kore ka yimid markaa cadaabkaas waxa uu nebigu ku fasiraya calayhi salaatu wasalaam daacuunka cudurkan la yidhaahdo daacuunka allah inaga badbaadiyee had iyo jeer khatarka ah ummadaha faraha badanna laaya xadiidka asalkiisu saxiixaynku ku sugan bukhaari iyo muslim nasa'i baana soo saaray lafdigiisa waxa uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam addaacuunu rijzun cadaabun cudiba bihi man kaana qablakum cudurkan daacuunka la yidhaahdaa waa cadaab lagu sii daayey ummadihii hore markaa kuwaa cadaab buu ku ahaa laakiin ummaddan cidda uu ku dhaco naxariis buu u noqonayaa waxaanu xusayey nebigu calayhi salaatu wasalaam in uu qofkaasi kuba noqonayaba shahiidba rijsigan markii ilaahay uu sheegayay iyo cadaabkan uu ku sii daayay waxa uu tilmaamay inuu xagga kore kaga yimid rijzan min asamaa sababta ilaahay uu u leeyahay xagga koruu ka yimid waxa weeye cadaabkani wuu ka duwanaa cadaabiyaasha ama dhibaatooyinka qofka ku dhaca markuu adduunyada joogo sababtuna waxa ay tahay shaygani hadduu xagga dhulka kaaga yimaado waa suuragal inaad ka gabato ama aad difaac ka gasho ama aad gurmad u hesho laakiin waxaanay hadduu samada ka yimaado dee waa musiibo iyo aafo samaawi ah oo ilaahay xaggiisa ka timid oo aana cid waabin karaysa aanay jirin bimaa kaanuu yafsuquuna buu ilaahay leeyahy cadaabkaasi wuxuu ku dhacay faasiqiintii ay noqdeen darteed waxaynu ka faa'iidaysanaynaa aayaadkan ilaahay amarkiisa oo la khilaafo oo la fulin waayo oo la fudaydsado waxa uu dhalayaa cadaab buu dhalayaa kala noocnooca oo markaa cudurrada oo bata leh dadka oo tawfiiqdu ay ka lunto oo uu ku bato nacaybshiyaha iyo xasadka iyo buqdiga uu ku bato waxa uu dhalayaa abaaro fara badan haddii laakiin dadku ay noqdaan dad ilaahooda ateecaya oo aan faasiqiin ahayne mutiiciina oo ilaahay u hoggaansan hadday noqdaan waxa ilaahay uu tilmaamay inay barwaaqadu u badanayso nicmana ay helayaan adduunya iyo aakhiraba sida aayada ilaahay uu ku tilmaamay qur'aanka ah fii suurati aljin وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا dadku haddii ay ku toosnaan lahaayeen waddadaa toosan oo ay raaci lahaayeen waa qoyskii iyo qofkii iyo bulshadii meeshaa ku noolayd haddii ay saa u toosnaan lahaayeen waxa aanu u shubi lahayn buu ilahay yidhi roob dhibco waaweyn oo aan marnaba ka kala go'een arrimaha reer banu israa'iil ilaahay ku eedeeyey uu kaga warramay inay foolxumooyin ay geysteen yihiinna waxaa laynoogu sheegayaa si aynu uga digtoonaanno ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu naga yeelo dad quluubtooda ay debacsantaho xaqa loo sheegayaa oo aad u galayo aadna u fahmaya ilaahoodana ka amar qaadanayo addoommo dhaban noqda derisku halkaa haynoogu joogo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi